maxaa sababa dhagxaanta kelyaha calaamadaha iyo daaweynta dhagxaanta kelyaha assalaamu calaykum dhagxaanta kelyuhu waa xaalad caadi ah oo inta badan xanuun leh oo dhacda marka ay macdanta iyo cusbada kaadidu ay dhalaaliso oo ay sameeyaan cuf adag gudaha kelyaha ama kaadi mareenka iyadoo dhagxaanta kelyaha ay ku kala duwan yihiin cabirka iyo waxa ay ka kooban yihiin waxay keeni karaan raaxo la'aan weyn waxayna u baahnaan karaan faragelin caafimaad si loo maareeyo si wax ku ool ah maxaa sababa dhagxaanta kelyaha dhowr arrimood ayaa gacan ka geysto samaynta dhagxaanta kelyaha oo ay ku jiraan kow fuuqbaxa qaadashada dareeraha ee aan kugu filnayn waxay ku horseedi kartaa kaadida oo aruurto waxayna kordhin kartaa khatarta samaynta dhagaxa labo cuntada isticmaalka cuntooyinka ay ku badan yihiin oxalateska sida looska shukulaatada ama cusbada iyo borotiinka ku badan yihiin waxay ka qayb qaadan kartaa samaynta dhagaxa saddex hidasidaha taariikhda qoyska ee horey ugu dhacay dhagxaanta kelyaha waxay kordhin kartaa u nuglaanshaha qofka in uu ku dhaco dhagxaanta kelyaha afar xaaladaha caafimaadka qaarkood xaaladaha sida hyperparathyroidism cudurrada kelyaha ee sistiga iyo caabuqyada kaadi mareenka waxay u horseedi karaan shakhsiyaadka samaynta dhagxaanta kelyaha shan daawooyinka qaarkood oo ay ku jiraan diureticska iyo antiacidiska oo ka kooban calciumka waxay kordhin karaan khatarta in ay yeeshaan dhagxaan kelyaha calaamadaha dhagxaanta kelyaha way kala duwanaan karaan iyada oo ku xiran xajmiga iyo meesha uu dhagaxa ku yaallo ee kaadi mareenka calaamadaha ugu caansan waxaa ka mid ah kow xanuun daran calaamadaha ugu caansan ee dhagxaanta kelyaha ayaa ah xanuun aad u daran sida caadiga ah ayaa laga dareemaa dhabarka ama dhinac oo inta badan ku faafaya caloosha qaybteeda hoose ama gumaarka labo dhiigga kaadida hematuria ama kaadida in ay soo raacdo dhiig waxay ku dhici kartaa in uu dhagaxa xoqo kaadi mareenka saddex calaamadaha kaadida shakhsiyaadka leh dhagxaanta kelyaha waxaa laga yaabaa in ay la kulmaan kaadi joogto ah degdeg ah iyo xanuun ama gubasho marka ay ku jiraan ama ay kaadinayaan afar lolobo ama matag dadka qaar ee leh dhagxaanta kelyaha waxaa laga yaabaa in ay la kulmaan lolobo matag ama calool xanuun ogaanshaha iyo daaweynta dhagxaanta kelyaha haddii aad ka shakisan tahay in aad qabtid dhagxaanta kelyaha waxaa lama huraan ah in aad raadsato qiimeyn caafimaad si loo helo ogaanshaha saxda ah iyo daaweynta habboon si loo ogaado waxaa muhiim ah saddexdan arrimood kow taariikhda caafimaadka iyo baaritaanka jirka bixiyahaaga daryeelka caafimaad ayaa wuxuu wax kaa weydiin doonaa calaamadahaaga iyo taariikhdaada caafimaadka wuxuuna samayn doonaa baaritaan jireed ama physical examination labo tijaabooyinka sawirada daraasadaha sawirada sida ct scan ultrasound ama raajada ama x-ray sidaa u taqaan ayaa laga yaabaa in la sameeyo si loo arko dhagxaanta loona qiimeeyo cabirkooda iyo meesha ay ku sugan yihiin saddex baaritaanka kaadida falanqaynta saamiga kaadida waxay kaa caawin kartaa in la ogaado xaalad kasta oo hoose oo gacan ka geysatay samaynta dhagaxa ikhtiyaarka daaweynta ee dhagxaanta kelyaha waxay ku xiran yihiin arrimo ay ka mid yihiin cabirka meesha ay dhagxaanta yaaliin iyo sidoo kale darnaanta calaamadaha daaweynta caadiga waxaa ka mid ah kow maaraynta xanuunka daawooyinka xanuunka ee aan dhakhtar qorin ama dhakhtar qoray ayaa laga yaabaa in loo qoro si loo yareeyo xanuunka ama raaxo la'aanta la xiriirta dhagxaanta kelyaha labo fuuq celinta biyo badan oo la cabo waxay kaa caawin karaan in la nadiifiyo dhagxaanta yaryar oo ay ka hortagaan samaynta kuwa cusub saddex daawooyinka qaarkood sida alpha blockerska ama daawooyinka lagu xakameynayo heerarka acidka kaadi mareenka ayaa laga yaabaa in loo qoro si loo fududeeyo marinka dhagxaanta afar nidaamyada caafimaadka kiisaska ay dhagxaantu waaweyn yihiin ama ay keenaan calaamado daran hababka caafimaadka sida shock wave lithotrips iyo uretroscopy ama qalliinada ayaa laga yaabaa in ay lagama maarmaan noqoto ka hortagga dhagxaanta kelyaha iyada oo dhammaan dhagxaanta kelyaha laga hortagi karin dhowr habnololeed oo wax ka beddel ah ayaa kaa caawin karo yareynta khatarta samaynta dhagxaanta kow fuuq celinta cabitaanka xaddi kugu filan oo biyo ah maalin kasta waxay kaa caawin kartaa in kaadida la miiro oo ay ka hortagto samaynta dhagxaanta labo isbedelada cuntada xadidaadda qaadashada cuntooyinka ay ku badan tahay oxalateska sodiumka iyo borotiinada xayawaanada ayaa kaa caawin karta yareynta khatarta samaynta dhagaxa saddex qaadashada calciumka isticmaalka cuntooyinka hodanka ku ah calciumka waxay kaa caawin kartaa inay xirto oxalateska mindhicirada yareynta nuugisteeda iyo sidoo kale in loo saaro kaadi ahaan afar la socodka qaadashada sodiumka xad-dhaafka ah waxay kordhin kartaa in la saaro calciumka kaadi ahaan taas oo qayb ka qaadanayso samaynta dhagxaanta shan jimicsi joogtaha in uu qofku si joogtaha u sameeyo dhaqdhaqaaqa jireed
waxay ka caawin kartaa in miisaankiisa caafimaad qabo. Waxa uu hoos u dhigi karaa khatarta ah in ay ku dhacaan xaalado caafimaad oo qaarkood la xiriira dhagxaanta kelyaha sida buurnaanta iyo dhiig karka. Halkaas ayuu inoo ogyahay, waxaa inoo badan ciwaanka xiga hadduu Alla idmo. Khayr badan.